sihayaha safaaradda Soomaaliya ee waddanka Kenya ahna qunsulka guud ee safaaradda mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi ayaa maanta booqday isla markaana deeq dhar ah u qaybiyay ilaa 9 maxaabiis Soomaaliyeed ah oo dhameystay xabsiyo 7 sano ah kuwaas oo ku jiray xabsiga Kamiti ee duleedka magaalada Nairobi. maxaabiistan oo sanadii 2012 ay maraakiib laga leeyahay dalka Talyaaniga ka soo qabteen xeebaha gobolka Bari ayaa waxa lagu eedeeyay falal burcad badeednimo ah inkastoo iyagu ay arintaasi iska fogeeyeen. qaar ka mid ah maxaabiistan oo markoodii hore xabsiyo ku soo qaatay xabsiga Shimalatawa ee magaalada Mombasa ayaa ka hadlaya waxyaabaha ay xabsiga kala kulmeen muddadii ay ku jireen iyagoo dhinaca kale ka mahad celiyay deeqda dharka ee uu gaarsiiyay sihayaha safaaradda Soomaaliya ee waddanka Kenya ahna qunsulka guud ee safaaradda mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi. alxamdulillah maanta waxa weeye waa maalin aad u weyn aad ayaan u faraxsanahay waqti dheer kadib maanta waxaan dib u helnay xorriyadeedii haddii alla ido waxaan jecelnahay dalkayga dib ugu noqono waxaan kale oo aan soo marnay dhibaatooyin iska yaryar laakiin hadda alxamdulillah waxaan maraynaa gabagabadii insha allah dalkaan ku noqon doonaa maanta mahad celinaynaa safiirka dowladda Soomaaliya Master Cali Bagadi oo noo keenay dhammaan dharkii aan ku bixilayn oo dalkii aan ku aadi lahayd alla ido aad baan ugu mahad celinaynaa safiirka. Kenya waxaa la keenay 09 bishii 6 taariikh 26 intii ka dambeysay ilaa iyo hadda 17 waxaan ku jiray xabsiga ku yaal dalka Kenya waxaan lagu seedeeyay burcadbeednimo inaan burcadbeedahay waxaan ligay maxkamadaha dalka Kenya ayadoo bilaa marqaantiya waxaan ugu dooday ciidamadii soo qabtay iyagana marqaantiga ugu ahaa iyagana dhibanaana ah sheeganahay inta kadib waxaa la xukumay 7 sano 7 sano waan dhameystay maanta alxamdulillah anoo caafimaad ah lixaad qaba inta ka bacdi waxaan mahad gaar ah u celinayaa safiirka Soomaaliyeed ee Kenya u fadhiya oo maanta dharkii aan ku bixi lahayn libiskan ku bixi lahayn isku xilqaamay isagoo hadii duruufta Soomaaliya ka jiraan ay dawladda Soomaaliya aan ognahay laakiin oo macnaha uu muujiyay inaan dad dawladda soo jeeday qaran. sidoo kale sihayaha safaaradda Soomaaliya ee waddanka Kenya ahna qunsulka guud ee safaaradda mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi ayaa ka sheekeeyay dadaalka safaaradda ee ka warqabka maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada waddankan Kenya. sida arkaysaan maanta waxaan booqasho ugu nimid dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu soo eedeeyay falal burcad badeednimo ah intii xukunkoodu wuxuu ahaa 7 sanadood waxay ku soo dhameysteen magaalada Mombasa oo dhowr jeer anigii safiirkii hore Jamaal aanu ku booqanay muddo hadda bil ka hor ayaa loo soo wareejiyay Nairobi maadaama uu xukunkoodu soo dhamaaday dhowr jeer ayaan halkan ku soo booqanay runtii waa aragoodu aad ayuu u fiican yahay caafimaadkooduna aad ayuu u fiican yahay marka maadaama ay baxayaan maalinta Khamiista Britol waxaa loo qaadi doonaa dilaalada Arbacada ah garoonka diyaaradaha meel yar oo dadka lagu hayo station ah habeenkii meesha seexanayaan maalinta Khamiista subaxii ayay diyaarad raacayaan oo waxay tagayaan Muqdisho hadii la yiraahdo 4 saac subaxnimo ayay Muqdisho ka degayaan wax kale uma keenin waxaan idin maadaama dhalinyaro oo 7 sanadood xabsi ku jiray ay yihiin haddana ay ku noqonayaan dadkoodii iyo dalkoodii at least aragoodii aan laga nixin marka waxaan u keenay wax yar oo labis ah oo ay maaragtay ay ku labistaan maalinta diyaarad raacayaan soo arkaysaan hadda waxay wataan dhar uniformka xabsiga marka waa dareemaysaa qof 7 sanadood meel ku xirnaa dhibaatada ay leedahay marka alxamdulillah rabbil caalamiin xoogaa yar waxaan u keenay oo qaarkood diyaaraddu waxay geynaysaa Muqdisho qaarkood laakiin waxay ka yimaadeen meelo oo magaalada Muqdisho ka baxsan oo gobolada dalka ah marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu safarkooda u fududeeyo. dhalinyaradan dhameysatay xabsiyada gaaraya muddada 7 sano ah ayaa maalinta Khamiista waxay dib ugu noqon doonaan waddanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Cumar Cabdi Xasan, Cumar Caaqil, SNTV, Nairobi.